waxaan si gaar ah u salaamayaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Saylici waxaan bogaadinayaa oo farxadana la qaybsanaya dhammaan ardayda 87 ah ee maanta ku dhamaystay waxbarashadoodii heerar kala duwan waliba maanta ay u suurto gashay mid ka mid ah jaamacadaha Soomaaliland oo Camuuda inay bixiso jaamacadda PhD haddii la yiraahdo 10ka si gaar ah baan u hambalyeynaya haddii la yiraahdo waan hambalyeynayaa gudoomiyaha jaamacadda boardka jaamacadda maamulka jaamacadda Camuud oo runtii ah institution guuleystay oo qaranku ku faanayo maanta jaamacadda Camuud waxay u baahan tahay haddii la isla wax ka qora in buug laga qoro wuxuu ahaa dugsigii ugu horreeyay ee sare ee xilligii Ingiriiska ee Soomaaliland keligii ay yeelatay waxaa ka baxay odayaal badan oo ay ka mid ahaayeen Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo mudane Saleebaan Maxamuud Aadan gudoomiyaha golaha guurtida iyo in kale oo badan oo aanan halkan ka sheegin hadda laakiin de taariikhdu xusi doonto institution kani ma aha institution tacliineed oo kaliya waa institution bulshadu leedahay oo ka turjumaya ummaddu markay iskaashato inay wax qabsan karto guuleysan karto waa institution nabadgelyada dalka guud ahaan iyo gobolka waa ka qayb qaatay waa institution dhaqaale waxaan isleeyahay institution dhaqaale ugu weyn gobolka marka ma aha jaamacad una class laga galo laakiin qaybo kale oo badan ayay u saamaysaa bulshada gobolka Awdal waa jaamacad magac weyn yeelatay oo dad badan oo ka baxsan xuduudaha Soomaaliland ay caruurtooda ku aaminaan una soo diraa wanaagaas dadka sameeyay ee hirgi haday boardka tahay haday maamulka jaamacadda tahay waan ku inayaa waxaan kaloo ku faraxsanahay inaan maanta anoo boorama jooga oo hirgalay mid ka mid ah ballanqaadyadii xilligii keenka oo ahaa madaxweyne kiisa si nabad ah ugu soo noqdo gurigiisa iyo dalkiisa ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi baaya dalku iska badan yihiin jaamacadda markii aanu wareysanay baahiyeedu marka la eego ma badna laakiin de dhaqaalaheena uu koobay waxa ka mid ahaa in hoolkan quruxda badan aan leeyahay waa ka ugu weyn Somaliland aan uga mahadnaqayo ciddii dhistay Camuud Foundation iyo qurba joogii ka qayb qaatayba xukuumaddu waxa iyaduna ballan qaaday fulinaysaana sida ugu dhaqsaha badan iyadoo ay dalabtay qalabkii hoolka u baahnaa la yiraahdo waxa kaloo baahayaa jaamacadda 4 arrimood oo kala jiray 4 arrimood waanu fulinaynaa laakiin sidoo kale horeeyaan ayaan eegi doonaa waxa ka mid ah in xarun maamul oo cusub loo dhiso maamulka jaamacadda haddii la yiraahdo waxa ka mid ah in campus cusub si ay u dhisato magaalada Hargeysa dhul la siiyo labada arrimood kalena baan lagu dhiibay marka insha Allah waxba ku sii maayo iyagana waxaan ballan qaadaynaa oo waa fulinaynaa wana soo kala horeynayaan haddii la yiraahdo ballan xilligii doorashada
aanu ballan qaadnay gobolka Awdal waxay u badnaayeen dhinaca horumarinta ballanqaadka waxaa ka mid ahaa in xukuumadda cusub hadday guulaysato ay dhisto madaarka magaalada Boorame marka waxaan u sheegaynaa ballanqaadkaasi wuu fulay gacantana lagu hayaa waana la dhamaystirayaa madaarka magaalada Boorame ka kalena wuxuu ahaa in waddada isku xidha Baki iyo Boorame kaasina wuu socdaa waana la dhamaystirayaa haddii aan la yidhaahdo ka saddexaad wuxuu ahaa mashruuc aad u ballaaran mashruuca ugu ballaaran Somaliland waa waddada isku xidha Lowyacaddo iyo Boorame kaana qandaraaskiisii bishan dhammaadkiisa bixinaya ka afraad waxaa dekedda ayaa dhowr jeer baa la weydiiyey mashaariic dhagax dhigo waxaan ku yidhi markaan lacagta helaa uma dhagaxa dhiga dhagaxyadii hore aanu ka doonayno ka ururino waddanka marka insha allahu iyadana hawsheedii waa ku jiraa shacbiga gobolka Awdal waxaan uga mahadnaqaynaa qaybtii ay ku lahaayeen inay ka qaateen oo ay fuliyeen intii xukuumadda ku hadlayna xukuumadda ballan qaaday waana la fulinayaa mashruucaas haddii la yiraahdo xukuumaddu guud ahaan waa xukuumad shacbigeeda la dareena waxaanu jecel lahay in waxyaabaha wax ka bedelaya nolosha qofka muwaadinka ay noo noqdaan muddo oo ay ka mid yihiin leydhka waynu ognahay duruufaha ay ku shaqeeyaan dalku maca shirkadaha leydhku duruufo adag bay ku shaqeeyaan laakiin waxaynu doonaynaa inaynu isku soo dhoweyno noloshii dadka haddii aan la yidhaahdo wuxuu noqday mid ka mida nolosheenna ama ka ugu muhiimsanba hadda maanta sidaa daraaddeed waxaan u mahadnaqayaa ee magaalada Boorame oo wadahadal kadib ogolaatay inaanu xukuumad ahaan ka dhigno qiimaha leydhka eber 5 laga bilaabo 1 November 2025 waxaa kaloo isla qaadanay shirkadda in halkaa laga sii jabiyo leydhka waxaa jira mashruuc lagu maalgelinayo leydhka magaalada Boorame oo sanad gudihii ku dhammaanaya insha Allah oo ah $10 milyan marka mashruucaasi dhammaado waxaa leydhka magaaladu noqon doonaa $0.3 oo tentatively noqon doona November 2026 biyo la'aantu waa mashkilad weyn oo qaranka oo dhan haysata dhammaan magaalooyinka wakaaladda biyaha ee Boorame waxaa loo sameeyey biyo ballaarin looga sameeyey sanduuqa horumarinta oo $10 milyan waxay xukuumaddu garanay maadaama investmentka la geliyey in qiimaha biyaha magaalada Boorame laga dhigo mitir cube-kii 11,000 oo Somaliland shillings waxaa kaloo jira mashaariic kale oo aan ballanqaadka ku jirin laakiin aanu fulin doono xagga caafimaadka cusbatalka guud ee magaalada Boorame laba mashruuc baanu ku soo kordhinaynaa mid waxa weeye in loo sameeyo oo loo sameeyay already warshadii ay dhalinaysay oxygen-ta haddii aan la yidhaahdo mashruuca labaad waxa weeye city scan ayaanu ugu deeqaynaa cusbatalka magaalada Boorame waxaa kaloo maadaama shacbigeenu dhalinyaro u badan yahay isboortigu muhiim buu inoo yahay waxaanu lagula dagaalamayaa balwadaha sidaa daraaddeed garoonkii magaalada oo aan wakhti dheer wax laga qaban waxaanu maanta dhagaxii dhigi doonaa waana dhammaystiri doonaa wixii ka qabyaa garoonka dhallinyarada
wixii kale ee magaalada iyo danaheeda iyo cabashadeeda intaba waxaan ka wada hadli doonaa odayaasha caawa haddii la yiraahdo kulanka alla leeyahay odayaasha haddii la yiraahdo waxaan kaga tegayaa xukuumaddu waa xukuumad waqti yar joogtay intii tamarteedana way dadaalaysaa duruufo badan oo intii ay joogtay ka soo dabaalatay oo aad u adkaana way jireen oo ay ka mid ahaayeen qaramayntii ciidanka dhalinyarada ahaa ee gobollada bari iyo kala wareegistii hufkii iyo gaadiidkii ay haysteen oo ahaa runtii mashruuc weyn marka jaamacadaha lagu dhiganayo DDR project baa la yidhaahdaayoo waxaa laga yaabaa 6,000 aanu qaramaynay haddaynu jimciyadda qurubaha ka dhexaysa weydiisanno inuu $50 milyan noqon lahaa laakiin inagaa fulinay inagoon cidna waxba weydiisan haddii la yidhaahdo ballanqaadyada kale waxaa ka mid ahaa aan miisaaniyadda noogu jirin aanu bilownay mashruuca waddada balgubadle iyo hargeysa iyo mashruuca baki iyo boorame oo la bilaabay iyo dhammaan mashaariicdii aan halkan ka sheegay imaka insha Allah waanu ka fulin doono magaalada boorame ama gobolka awdal waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maamulka jaamacadda oo ay ka muuqato sida uu u koray muddada dheer ee ay soo wadeen jaamacaddu sida la sheegay waxay bilaabantay 1997 Professor Halas wuxuu inooga warramay dufcaddii ugu horeysay qalin jabisay intay ahayd 47 maantana waxaa qalin jabiyey 1,087 isugu jira PhD Masters iyo Bachelors ardayda qalin jabisay 22 waxay ku qalin jabiyeen geed hoostii maantana waxaynu fadhinaa hoolkii ugu weynaa Somaliland waxaan jaamacadda ku bogaadinayaa iyo jaamacadaha qaranka ee Amuud iyo Hargeysa iyo Burcaba inay hab yeesheen manhajtoodana mideeyaan si tacliinteenu u noqoto mid tayadeedu ay aad u fiican tahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaantiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته